oo faarka waxaa loo cadaabaa sida dadku dhahaan maxay ahayto reaction xumada macnaha kama dhiibiyo wixii la yeelo soo inaku dad oo faarhamanihin dad baan nahay ilaahayna inta uu abuuray waad ogtihiin qur-aanka walaqad karamnaa bani aadama ku jirta aayada ilaahay inuu aadanaha karaameeyey dhammaantiis marka waxaad ka mid tihiin dadka uu ilaahay la doonay dhulkaa inay wax ka degaan waxaad ka mid tihiin xaqna u leh aayahooda ka tashadaan marka waajibka la saaray muxuu yahay gudashadiisu inaanu xaqa isugu hidhino keendii qalloocan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa hadda kor lagu yiri nabi maxamed oo kuwan godadka kuu qodaya ee dhibaatada kugu haya ilaahay u bari oo mataqaana habaar markaasuu wuxuu yidhi allahuma anta qowmi fa innahum laa yaclamuun waxaan leenahay kuwa inaga naga tirsan ee aan doonayn dadkoodu inay xoroobaan ama isleh kuwan intay doorka ku jiraan war lama dhegeysten isagu ma garanayo caqligiisu inta u gaarsiisan yahay caqligoodu u gaarsiisan yahay lama dhegeysten haddaan idinku xabadda qaadateen xaqiiqduna waa sidaas lama dhegeysteen waxaan aada iyo aada runtii ula dhacay heesihii wadaniga ahaa ee gabdhaheena iyo wiilasheena aan rajaynayo hadday nasiib u yeelan lahaayeen gudaha inay muddada ay galbeedka joogeen inay gudaha joogaan maxay ahayto wax intaa ka badan ba ay dadkoodu tari lahaayeen loo diiday inay adeegayaal dadkooda u noqdaan inay ka qayb galaan hanaan xasiloon ama dowladnimo oo deegaankaas u yeesho waxaan ugu hambalyanayaa dadaalka ay ugu jiraan anigu waxaan isiri ma ogaadeen inaad dhex joogtaan waxaa jira qof gabadhii ugu yarayda shalay halkan ka hadlaysa wada arkaysa kuwii soomaaliya laga keenaa soomaaliyii waa ka tageen jooga dhulalka kale marka waxaan idin leeyahay hambalyo idinka oo arkaya caalamka oo arkaya cadaabka iyo shidada la idinku hayo runtii waxaan soo qoray 13 page oo maxay ahayd qoraal ah oo taariikhda iyada ku saabsan halgankii dadkani usoo galeen 40 sanadood muddo hadda ku dhow waa ku horreeyay halganku laakiin xabadda waqtiga ay bilaabatay janankaa jooga ma aha keligin kuwa ciqaabka lagu hayo falastiin baa ka mid ah waxaan u hilinaynaa waxaad ogtihiin geesiyaal taariikhda ka gala keenay diinteena iyo dalkeena loo daayaan maxay ku diidayaan waa garan waayo marka wuxuu yidhi ninaan qaraabanahay oo shibcanna la yiraahdo mar abgaalka iyo habar gudurta ay kaftameen buu wuxuu yidhi habar gudur buu ujeedaa buu yiri geed habar gudur baan geed camba ah hoos dejinaya wixii laga helo waa hubsanaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi kii shibcanna habar gudurta uu iska halgamay allana ha u heli waayo marka ninka hadda ogaadeen iyo xornimada u diida waxaan rabaa inaan u sheego ogaadeen waa xoroobi xaqiiqduna waa sidaas waxaa jira geesiyaasha aan soo sheegi doono oo qaarkoodna ay dhinteen qaarkoodna ay nool yihiin waxaa ka mid ah generaal cabdullaahi mukhtaar xuseen waxaa ka mid ah generaal maxamed macalin cali waxaa ka mid ah generaal siyaad daawud gudaal waxaa ka mid ah generaal muuse xasan sheekh waxaa ka mid ah generaal muuse maxamed cismaan qaadi cabdiraxmaan khaliif dhicis cabdiwahaab maxamed xuseen bilaal fula guuleed admiral maxamed cumar cismaan gudoomiyaha jabhadda ownlf waxaa ka mid ah generaal aadan cabdullaahi nuur oo la dhihi jiray aadan gabiyo allahu naxariisto iyo aadan cabdi ducaali oo taliyihii ciidanka booliiska ahaa galabtii la duugayana wax ka jooga oo ka qayb galay dhismaha jamhuuriyaddii soomaaliya anigu marka aan leeyahay wallaahi waa idinku faanaya waa idinku faanayaa haddaan tago waxaan aaminsanahay dalkaygii inaan joogo haddaan joogo ogaadeenaya waa xeer waa la gaarayaa waxaan ogahay dariiqa xornimada lagu gaaro inuu yahay mid xanuun badan mid dheer ma idinla tahay mar haddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam alla subxaanahu watacaala uu ku yiri maxamedow inaka mayito wa inahu mayitoon cid la deynayaa horta inay jirto ogow ashraful qalqi baa dhintay xaqiiqa waxaa ah qof kasta oo nool inuu dhadhaminayo geerida waa dhimanayna marka adigoo daqon ahaynta midi lagu gelin lahaa iyo xabad lagugu dhufan lahaa adigoo istifaaciyo dagaalka ku jira inaad dhimataa qiimo badan hadalkii uu lahaa maxamed ibraahim sheekh ibraahim xogeyaha hadda
OYSU ahaa ballanqaad inaan madaxdeenna iyo hogaamiyaasheena ku siino kaalinteenna ah inaan la garab taagannahay halganka ay ku doonayaan inay arkaan dadkooda oo xor ah. ballanqaadkaas inaad la qaadaan baan idinka rabaa galabta. ogaadeen iyo ha xorowda, ogaadeen iyo ha xorowda, ogaadeen iyo ha guulaysato, ogaadeen iyo oo daltaago ay ku jirto qaramada midoobay iyo dalalka aan martida u nahay oo aan aragnaa ilaahay xaggiisa naba ku dheer, annaguna inay nagu dheeraata maaha. ogaadeen iyo ha xorowda, ogaadeen iyo ha xorowda, idinkuna guulaysta. aada iyo aad baad munaasabta. maadaama aad ka kala timaadeen dhowr goobood, ujeedadeeduna ay ahayd inaan shirkan isaga ka qayb galno, in aan Free Ogaden OYSU faraca Oslo ama Norway in la iga aqbalo, maadaama bugaagta soomaalida ee aan qoray ee taariikhda soomaalida sugaantooda ay ku qoran yihiin ay yihiin ilaa 9 bog, laakiin 6 ka mid ah la daabacay. waxaan rabaa inaan generaalka u dhiibo, isagoona uu guddoonsiiyo hogaanka jaaliyadda ee Norway. Thank you.